dhalinyarada loo kiciyo si loo abuuro qallaase loo keesinayo bulsho kicin. qaar ka mid ah dhalinyarada oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in aan la taagnayn xilligii dhalinyarada loo adeegsan lahaa dana siyaasadeed. dalkaana dagaal uma rabno marka dadka dagaalka waxa uu baaqaynaa dalkaani nabad baa ka rabnaa inuu noo dhismaa ka rabnaa dawladnimo ka rabnaa haddii aragtiin dagaal iyo xabad iyo hiil inay gashiin Falastiin oo hiilina wadiya Falastiin ana geeya dalkaani dagaal kama dhacayo laakiin in koox yar oo tan jadiid la yiraahdo ee anaga nugu adeegato ee maaragtay dhahaan habarkii wax ka maqan yihiin waa ayb waay maaha anaga wixii aan ku soo kornay inay carruurteen ku soo koraan jidka anaga aan soo marnay in carruurteen ay la marsiyo maaha maantay hantida ugu badan magaalada Muqdisho anaga iskale guryaha ugu badan 50% habarkii raba xamar iskale marka hal burburiyo yaan qofna ka yeelin waa nin iyo labo dadka maalin hore ka hadlay hotelkaas waa dad shakhsiyaad oo aan wada naqaan oo wada tanaystayaal walaalayaal oo ka caliyo yaan dhibaato naloo turbaan tumin aan dawladteena taageerno qofkii rabo madaxweynaha ka noqdo waxaan loo muhiima in inteena waxa isku keenay halkan aan ka cadeeyno annagu waxaan diyaar u nahay nabad waxaan diyaar u nahay barwaaqo iyo bashbash iyo Soomaaliyada waxaan diyaar u nahay nabadgelyo maahan ilmaheena iyo dumarkeena in ay diyaar u noqdaan barakac ama horseed maantay habargidir markii ra'iisul wasaare noqotay maxaa dawladda ka horay shalay waxa kama horeeyay inta la isku sheegaa muhiim maanta habargidir ra'iisul wasaare dawladnimadu way shaqeynaysaa habargidir wax dumin jirtay oo anaga dhexdeena ma qaadan karo waxaan qaadan karnaa ma insha Allah waa quraas isku haystaan iyo dana gaara isku ma haystaan wax dana ee Soomaali ee wadana marka waa inaan ka dhiibnaa oo mowqifka ka istaagnaa oo nabad u helinaa ka dhalinyar ahaan nabad aan rabnaa nabad aan nadeeqda nabadu waa aasaaska jiritaanka bini'aadamka haddaan nabad jirin qof jiraysa ma jirto ninka kursiga joogaan joogay midka hadda raadinaya oo kaca ku faayaan joogay marka walaalayaal annagoo maskaxdeena iyo aqoonteena ka faa'iideysanayna nabada aan u helino. dhalinyarada ayaa kulankooda gabagabadii ka soo saaray warmurtiyeed ay dhalinyaradu ku muujinayeen rabitaankooda iyo sida ay u doonayaan in meel looga soo wada jeesto dhibaatooyinka lala damacsan yahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed. kadib 3 casho shir u socday dhalinyarada beeshan oo ay kaga tashanayeen arrimaha amniga iyo nabadda iyo mustaqbalka ka dhalinyaro ahaan kadib markaa aragnay hadallada cadaalad hadallada colaadeed ama colaad hurin iyo hurinta ama kicinta dadka Soomaaliyeed kadib markaan qiimeynay jawiga nabadda iyo isku dirka beelaha iyo walaalaha Soomaaliyeed kadib markii aan aragnay qaar ka mid ah dhaqankii oo arrimihii lagu yaqaanay ka tagay inuu istaagay oo xusul duubay arrimaha colaad hurinta iyo kicinta dadweynaha waxaan go'aansanay inuu istaagnay ka shaqaynta danaha mustaqbalka iyo nabadda nafteena iyo midda dhalinyarada nala midka ah ee caasimadda Soomaaliya ku nool. kulanka dhalinyaradan ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay ay ka dhacayeen kulamo isdaba joog oo ay bulshada qeybaheeda kala duwan ku muujinayeen sida ay u garab taagan yihiin nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada. Tawakkal Shabelle TV Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. faa'iidooyin